alxamdulilah mar walbo allah subxaana watacaala ayaa mahadi iska leh bismillaahi ilfataaxi alcaliim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi ilkariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eeli asxaab waa idin salaame meel walba waa dunida ka joogtiin iyo xili walba oo idin tahay waxaa idin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina soo dhadhawaada kusoo dhawaada qalbi furan haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow haddaa wiil subscribe ii dhihin fadlan subscribe ii dheh kambaleelkana furo sida video walba cusub uu kuugu soo dhaco haddii aad ka mid tahay ehelkii asxaabtane fadlan liketa iyo sheerta hanaga baqiilina dhammaantiina waa mahadsantihiin inaa idin dhahone marnaba kama daalay kamana caajisay man laa yashkurinaas laa yashkurillaah maantana waxaa noo wadaa afternoon skin carekeyga ayaa idinla wadaagayaa insha allah biidnillahi kariim daawo videoga bilaaw ilaa iyo dhammaad haddii aa wax su-aal qabtid qeybta commentiga kusoo qor fadlan sii sheergaree sida dad badan ay uga faa'iideystaan channelkana dad badan uu u gaaro mahadsanid daawasho wacan skin carekeyga waxaan u isticmaalayaa aloe vera gel sida ujeediin iyo vitamin E marka hore vitamin E ayaa wejiga marsanaya kadibna aloe verada ayaa ku kormarinaya haddaa rabtidna waa isku qasan kartaa aniga mararka qaarna waa isku qasaa mararka qaarna marka waxaa rabaa vitamin E-ga inuu si fiican wejigeyga u dhex galo marka waxaa sameynaya vitamin E-ga wejiga marsanaya kadibna aloe verada ayaa marinaya waa kaas waa ujeediin labadaneeti wejiga ayaa u isticmaalaya garsiliinkana waxaa marsanaya indhaha hoostooda faasiliintana waxaa marsanaya faruuraha kareemkana waxaa marsanaya jirka kareemkan wuu cusub yahay hadda lee baroobeynooyaa huruud uu ka samaysan yahay dukaanka aa kasoo gadana waa etos kambanigana sidoo kale waa etos marka ugu horeeya waxaa ku bilaabaya wejiga vitamin E-ga ayaa ku shubanaya xoogaa roon maalmahan wejigeyga aad u khalalan yahay marka sidaas darteed wajidi marka hore gacanteyda labada gacmaa saas ku dhahaya kadibna wejiga ayaa marmarinaya si fiican wejiga inaa u dhexgelisid waaya haddii wejigaaga qaleel uu yahay runtii aad iyo aad xilliga kuleelaha iyo xilliga qaboobahaba aad u qalalaya wejigaaga khaasatan xilliga kuleelaha haddii aadan haddana biyana si fiican u cabeynin wejiga aad u kaaga qalalaya qof wejiga laga guguba camalaa naqanaysaa hadda waxaa marinaya haddana aloe verada wax yar lee marinaya aloe verada waxay iga caawinaysaa haddaa wax ku xasaasiyoodo ama kuleelka idhibo waxaas dhan ayay kaa nadiifinaysaa iyo wejiga qaleelka qolfaha dhanna way kaa dejine hadda dana asiga ku kormarinaya marka vitamin E-ga marisid aloe verada ku dul marisid waxay kuu naqanaysaa sida kareem camal kareem dhan uma baahnid maalmahan dhan aniga kareem iyo waxyaabahaas dhan ma isticmaalooyi sababtoo ah wejiga waxaa waaye xoogaa yar qaleel zaa'id u yahay marka waxyaabaha dabiiciga saliidaha iyo aloe verada iyo waxaas lee rabaa inaa xooga saaro dhowr marna waa sheegay balse asxaab cusuba mar walba igu soo biirayso ayagana waxaa waaye inay ogaadaan hadeertaan waxaa ku xijinayaa waa garsiliinkana waxaa marsanayaa indhaha hoostooda waxaa la isticmaalaya adiyadana hal dhibic indhaha hoostooda dhanaa marinaya garsiliinka marka indhaha hoostooda wuxuu u taraa madmadowga oo indhaha hoostooda dhan ayuu bi'inaya haddii meel madow ku leedahay mar walbo garsiliinka intaa qaadid ku masaajeey kadibna waxaa marsanaysid iska marso haddana waxaa noogu xigo faruurta ujeediin waxaa ku qoran faruurtaada inuu kaaga dhigayo pinki iyo sidoo kaleeto jileec aad u fiican yahay waa kaasaas waaye si dabiiciyana loo soo sameeyey caraf iyo waxaas dhan malahan ugu dambeyntan waxaa isticmaalayaa kareemkan waxaa marsanayaa lugaha iyo gacmaha waa ujeediin saas uu eg yahay
Kana skincare-keyga maanta inta aan isticmaalay waa intaan sida ujeedinbo vitamin E, body lotion, garsliin, aloe vera gel iyo vaseline-ta faruuraha loogu talagalay. Waan rajeynayaa video hadduu idiin soo gaaro inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin haba yaraadee. Sidoo kale haddii aad rabtid wejigaaga inuu qurux badnaado, maqaarkaaga ku dhaldhalaalo oo mar walba wax qolfoof lahayn, balanteena waxaa waaye biyaha cad badso. Haddii biyaha cad kaligiis aad ibsanaysid waxaa ku darsan kartaa sida ujeediyaan waxaa kusoo darsaday waa chia seed iyo liin dhanaan. insha Allah biyaha aad iyo aad u muhiim u yahay haddii aad rabtid qurux iyo caafimaadba biyaha isku ogaaw insha Allah. waa ku mahadsan tahay daawashada videogan haddii intaan nala soo gaartay daawado daacad ayaa tahay. waana rajeynayaa inaa wax un faa'iideysatay haba yaraadee asxaabta carartayna ayaga ayay faa'iido la'aan ku dhacday. inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa nabad iyo jacayl. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano Allah.